بسم الله الرحمن الرحيم. معي وعبد السلام أحمد فارح. waxaan ku duubayaa maasii 14 October waxaan leeyahay qariixii ka dhacay xamar qamti bishii tobnaad baa qalbigayga haariyo ku sameysay boog qalan xusuusaha qaraar baa horqotoba nafteedo ciil iyo qamomiyo qandho iyo xanuun iyo cara aan ka qaadaan markaan qarandigii iyo duqowdii ku dhameeyay culimadii la qowracay iyagoo quraankiyo inay diinta qaadaan dugsiyada qufulan iyo goob qiimo badan iyo iskuulada furaan qaar aqoon qaybiyaan rabay عبيدي كو قرحدي وبيحي كو قرلان دي بقومميا حبريه قدودي ugu gooyay galin qudha iyagoo wax qaladiya qarribaatan aan falin say qoys u biilaan u soo raashay qudoodu qorax duhur taagnaa aqoonyahankii qaranko qiilaanta lagu dilay bilmageydadan qaraarkiyo loo quuri jirinay dadku uu qadarin jiray oo lagu qisaasan dib qoommeeya meydkii qadoobsamay hilibkiisu qaybsamay lafa meel ku qaraxdiya dhaawicii la qali iyo cadkii dhigo qariyaan dib qoommeeya isku iskii dad qalatadu qarankay ku solatiyo goobtii qamumyadu qalbigay ku taala sanadkii qafaalmo ilma badani qubato nagu reebay qiirada qalbigu ku yaala bishii qaawaneedo adduunka oo dhan laga qiray murugadu ku qaydneed mar walba ay ku qoran tahay sooyaalka aan qarin dhacdadii qarniga timi qisadii ka dhalatay qaadan waa wixii dhacay qalin baan ku qorayo warqad baan ku daabici xuskeedana ma qarinay weynu qabanin waligeen inkastay wax qoran iyo qadar eebe ay tahay misna naxdina qaadiyo nusqaan weeye nagu yimi qarankayga baayo qurumaha sheeyo qom soo duulay kuma dilin wax saqaarka sare iyo ka jaray xubnaha qaar dadkaaga qabiil iyo qoloqolo u kala baxay doqon qori la siiyo dadka madaxa qaadiye lagu yiri qur soo goy ayaa qaabkan ka dhigay qaadirow allah iyo qaladka wixii falay ka dhex qabo islaamku uqubaan qalooc iyo fudayday ku qabatiyo aan lahayn wax qarin kara ku qeydkabi ahaantood qaadirow allah iyo qaladka wixii falay ka dhex qabo islaamku naartaada qiiciyo jahannama u sii qayr adaa qaban karaayay qaadirow allah iyo naga qabo dad qaato. Assalaamu calaykum.